مليون وإنتي داوع كسو غاري اسبورشدي كدلتay shalay kumanaankii dadweynaha ee isugu soo baxay muxaadaradii uu jeedin lahaa Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi waxaana xalay booqday Sheekh Maxamed Ibrahim mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo maamulka gobolka Banaadir xilli lagu dabiibayo isbitaalka Madiino Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi oo warbaahinta dawladda kula hadlay isbitaalka ayaa u duceeyay inanta dhaawaca ah ay booqdeen waxa uu fariin gaar ah u diray dadka baraha bulshada u adeegsanaya inantan dhaawaceeda xaqiiqadii waxa weeyaan waa amni ba meesha joogay dadkii ba aad iyo aad u farabatay marka dadkii farabatay baa waxa dhacday in dadkii ay u maleeyeen in hoolka laga celinayo dadkii aad u farabadan isbuursigii ayaa si khalad ah askari waxa uga dhacday xabadii isagoo celinaya dadkan meeshana wad garanaysaan oo meel 2000-3000 ee filayeen ayaa kuntameeyo kun yimid marka runtii waxaan aragnay in qalbiyadii wanaagsanaa ee maanta runtii halkii yimid in ay jiraan haddana hal ama labo runtii buka inay jiraan wareejinaya sawirka gabadha wareejin mayaan sawirada faraha badan qalbiyada quruxda badan ee halka isugu yimid Basma Caamir Shikeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir ayaa shacabka Muqdisho ku booriday sida ay u jecel yihiin wanaaga iyo iscafinta Soomaali maanta waxa la arkay inay diyaar u tahay inay iscafiyaan ee u soo baxeen wanaaga tan ugu qiimaha badan lagu soo baxo dadka warxumada shiilka magaalada faafinayana waad u jeedaan xaaladda ay ku sugan tahay gabadhii yareed ee ku dhaawacantay inay wanaagsan tahay ilaahay inta yaraa ka soo gaaray boogti Allah ka bogsiyo waxaan rabnaa inaan u diyaar gareyno ummadda Soomaaliyeed meel weyn oo holkii maanta ka weyn kana wanaagsan Cismaan Aadan Dhuubow wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa ka cudur daartay isbuurashadii shalay dhacday waxa uu tilmaam ka bixiyay xilliga la qaban doono muxaadaradii dib loo dhigay ee Sheekh Kenyawi laakiin waxaan leenahay ballan qaadayna maamulka isbitaalka iyo mas'uuliyiinta kale dhaqaatiirtaba aan kulliba u marinayna war xag warbaahinta iyo kooxda daba joogta ee mas'uuliyiinta kala aba in gabadha yarta inta caafimaadkeeda socdo wixii daawo ay qarashada inay noqdaan kuwa nagu aadan ka wasaaradda diinta iyo awqaafta marka muhiimadaas ayada anaga doorkeeda leh insha Allah ta'ala Allah noo caafiyo gabadheena waqtiga xiga oo sida sheekha uu tilmaamo ah in goob wanaageeda leh lagana sii shaqeeyo in ay kulankaas noqon doona mid doorkiisa waqtigiisa aan ku siino insha Allah sheekheena inta martida